anigu waxaan ka mid ahay dadka fursadda u yeeshay inay ku soo baxaan qof iyo cod oo waxaan ka mid ahay dadka golaha deegaanka ku soo baxay fursad way jirtaa ani waxaan weydiinayaa xildhibaan Saadiq raallina hayga ahaado xildhibaan Saadiq wuxuu dhahay cabasho ma jirto dumarkuna ma caban karaanin cabasho way jirtaa gabadhii waxa saameynaya markii ay gasho inay tartanto ama ururka tartanto gabadha waxa loo fiirinayaa ciyaalkay dhashay in la dhaho reer hebel bay dhashay lama siinayo boos oo reerkooda uu saaro waxa la dhahayaa reerka saasay ku qabsanayaan aniga idin la hadlay idin hortaagan waxaan ka soo baxay ururka siyaasadeedka ka ee dawladda hortii madaxweynaha Saciid Cabdullaahi Dani waa uga mahadcelinayaa fursadda uu na siiyay because codkayga dib noogu celiyay fursaddan hadaysan timaadaan anigu waxaan aaminsanahay ma imaadeen maxaa yeelay aniga qof kale oo familkayga wuxuu ka tartamaya urur reerkayga oo dhan wuxuu iskugu tageen ninkii anigoo dumar cilla iga tageen nasiib wanaag waxay caawiyo oo soo gaarsiiyay xaggaana waa listiga xiran oo tibad ay qayb ka ahayd haduusan listigu xirnayn de lambarada damaadna la geyn lahaa aniga foor baan ku qornaa listiga xiranna wuu na caawiyey listiga xiran hana caawiye waxaa jirtaa markii aniga aan booska doonaya waxaa la dhahay ciyaalkaagu waxa weeye reer hebel oo aniga caqabadba xagga igaga imaanaysa marka cabasho way jirtaa mana dhamaanayso baan aaminsanahay haddii aan dawladdu wax ka bedelin ama se aysan raggu noo bislaan because goorkii lagama maarmayo gabadha dooqeeday raacaysaa qabiilkeeda khasab maaha inay dooqato laakiin khasab waxa inay jacaylkeeda xubbigeeda raacdo marka haddii la rabo in ay sii socoto maxaa la dhahaa dimuqraadiyaddu ay Puntland ka hirgashay wayba sii soconaysaa 23 gabdhood baa soo baxay degmadayda waaga hore laba ka soo baxay degmada ayl laakiin hadda 6 haweenaa ka soo baxay listiga xiran baa na caawiyay nasiibna wuu na caawiyay mid kalena way jirtaa inaan dhahno listiga inaan dhahno waxbaan doonaynaa ururadana aan laga qayb qaadan ururku wuxuu leeyahay ururada asxaabta badani laftigadu shaqay u baahan tahay intii nabadoonka in ka badan bay u baahan tahay maxaa yeelay ururkii waxa la rabaa inaa gadid samiicada ururka inaa kor u qaadid inaa waxyaalo badan aad samaysid dhiigana aad u shuftid marka waan hambaliyeynayaa xildhibaanada golaha deegaanka oo tiri beeshi wax iga raacday ninka waa run nidaamka qabyaaladda ee Soomaalidu jeceshahay oo waxaynu ku falanaa aan la aqoon oo dalkeeni burburiyay oo dawladnimadeeni burburiyay oo inaga reebay dadkii inagoo kala ahaa baa wuxuu u dhigan yahay qabiil marka kaasaa wuxuu reebayaa in ninkii laga tago gabadhii oo aqoon fiican in laga aado ninkii marka waxaynu u baahannahay inaynu aadno sida sharci iyo nidaam iyo dawladnimo u aadnaa